dadkii hore u yaqiina waxay ii sheegeen inaanu weligii guursan waxa sidaa u engejiyeyna uu yahay jacayl soo maray xilligii uu dhallinyarada ahaa. dhegaystayaal, maansada soomaalida iyo hababka wax loogu curiyo oo ku kooban gabayga, geeraarka, jiiftada iyo heesaha dhaqanka ayaa la soo gaaray abbaaraha dabayaaqadii 1940 qarnigii 20aad. haddiiba waxaa looga raystay dhaantada iyo batarku cayaarihii ay ka midka ahaayeen ee habeenkii oo keliya la tuman jiray, welibana lala fogaan jiray. waxaa la helay iyada oo la iska fadhiyo wax aqallada gudahooda lagu tuban karo, habeen iyo dharaarna aan loo kala eegayn. ujeedda ahaan jacaylka oo qura ayuu hal abuurku heelooyinka kaga hadli jiray. taasina waxay sababtay in mararka qaarkood wadajirkooda loogu yeero qaraami ama qaraam. waxay ku habeen jireen codad aad u macaan, laguna qaado tuducyo gaagaaban iyo meelisyo dabacsan oo aad u gilgili kara, haba yaraatee dareemada qofkii codadka dhadhan kale macaansigooda uu eebbe wuxuun ka siiyey. badanaa dulucda midhaha heellada oo sida dhaantada meeliskeedu 2 dhuudood ka kooban yahay waa calaacal aad u daran iyo jacayl mar walba oo hal dhinac la saxariirsan yahay. allah u naxariistay gabyaagii weynaa ee dhowaanta xijaabtay cabdulqaadir xirsi siyaad oo yomyom ku magac dheeraa ayaannu beri isla soo qaadanay murtida heelooyinka qaraamiga ah ka buuxda. markaasba wuxuu tusaale iigu soo qaaday nin ay saaxiib ahaayeen oo sulub cumar la odhan jiray, kana mid ahaa hal abuuradii midhaha heelooyinka curin jiray. siduu yomyom ii sheegay, wuxuu sulub ahaa nin jacayl feentay oo harag iyo hilibba ka idleeyey. wuxuu u ekaa buu yidhi geed qallalay. dadkii hore u yaqiina waxay ii sheegeen inaanu weligii guursan waxa sidaa u engejiyeyna uu yahay jacayl soo maray xilligii uu dhallinyarada ahaa. yomyom wuxuu igu yidhi, waxaan sheekadaasna dhab u rumaystay markaan isu eegay ninka muuqaalkiisa iyo erayadiisii uu ku alaladay ee caanka noqday. anigoo sugayla ayaan weydiiyey erayadaasi kuwii ay ahaayeen. dabadeedna isaga oo ka yaaban inaanan aqoon ayuu yidhi, ma waxaanad maqal had mooyee habaarba looma dhintee, haaduna subaxdii hortay ma kacdee, aniyo hilbahaygii kale hoyanne, labaysu hilowday hayga hadhee, hamoy beene sawtan la ihel. dhegaystayaal, codkaas miyirka qaadka leh waxaa allaha u naxariistay 1979 xamar lagaga qabtay xaliimo khaliif magool oo ka mid ahayd fanaaniintii ragga iyo dumarkaba lahayd ee heellada iyo guud ahaanba fankeeda casriga ah soomaalida jeclaysiisay.